Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Xasan, waxaan deganahay waddanka Poland. Muddo ka badan 10 sano ayaan waddankan deganahay. Alxamdulillah waana ku nabad qabnaa. Waxaan rabaa inaan ka hadlo dadka Soomaaliyeed ee deganaa waddanka Ukraine iyo dagaalkii kadib marxaladihii iyo dhibkii ay kala kulmeen, safarkii iyo wadamadii kale ay sii mareen iyo wixii ay kala kulmeen xaaladooda guud. Aan rabaa inaan faahfaahiyo. Ukraine horta waa waddan ugu dhegan. Waxaa ka dhacay dagaal, dad Soomaaliyeed oo fara badan ayaa ku sugnaa oo ardo iyo ganacsato iyo dad deegaan isugu jira intaba. Ukraine markii dagaal ka dhacay wuxuu wada saameeyay dagaalkii dadkii meesha ku sugnaa dhammaantood, midkii waddanka u dhashay iyo kuwii waddanka soo galay oo ajaanibta ah intaba. Dadkii si isku mid ah u soo carareen, dhanka xuduudda afka la soo wada saaray. Dhanka xuduudda afka markay soo saareen, dadkii basasa soo qaaday, meel xuduudda 50 kilomitir u jirta lagu dejiyay. Dadkii 50 kilomitir horta waa soo lugeeyeen. Waad qiyaasi kartaa culayska ay leedahay qof Soomaaliya ee Ukraine joogay ee arday ahaa ee aan weligiis bixin, ama hooyo Soomaaliyeed ee reer dhaqanaysay ee Ukraine joogta aan weligeed soo bixin, ee la yiraahdo 50 kilomitir lugay dhuleys weligeed aqoonin, meeshan duur waxa uu soo bixi karaa aysan aqoonin, fadhi inuusan u jirin, lugaa la soo wada galay 50 kilomitir oo ay safraysan 48 saac, 72 saac, 36 saac, qof inta ku qaadato. Alxamdulillah, ilaahay wuu nabad keenay. Intaan maqalnay wax dhib ah oo ka dhacay meeshaas ma jirto. Dadkii Soomaaliyeed ee waddankaas ka soo baxay dhammaantood waxay nabad yimaadeen xuduudda waddanka Poland, si nabad ah ku yimaadeen. Xuduuddii markay yimaadeen, dadkii meeshaas soo gaaray xuduudda yimid laba qayb ay ahaayeen. qayb sharciyadooda wadatay oo baasaboorro wadatay, fiisa la siiyey 15 cisha, waddankii nagada hore u galaa la yiraahdo. qayb waxaa jirtay aan baasaboorro wadan ama kaarar aqoonsi midna aan wadanin, ayagana geesaa loo leexshay, meel geesaa la geeyay, waxaa la yiraahdo soo caddeey jinsiyadiina. Ilaahay mahadiis, qaarkii la yiri jinsiyadiina soo caddeeya, isla markiiba waxaa yimaaday safiirka waddanka Belgium isagoo garabsanaya dhalinyaro waddanka wax ku baratay oo aqoon-yahano ah iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Poland, sidoo kaleeto dhalinyaro kale oo ka tirsan Foundation for Somalia oo hogaaminayay gudoomiye Cilmi Cabdi. Dhammaan waa loo istaagay, dadkiina waa la soo xaqiijiyay jinsiyadoodii, inta badan waana la soo daayay. Okay, markay dadkii caasimadda yimaadeen, caasimadda waxay kala kulmeen dadkii jahawareer, because markaad timaado waddan aadan aqoonin, dad hore aadan ka aqoonin, waad ku jahawareeraysaa. Jiif male, cunto male, meel ku degaan male, xataa kii raba inuu sii baxo meeluu ka baxa ma yaqaano. Markay soo noqoto aragna culaysku inuu sii siyaadayo, anagii as abaabulna haddana raga u saarnay oo hogaaminaya gudoomiye Cilmi Cabdi. Dadkii in la aasaaso, la tabantaabiyo, qofkii baxaya safarkiisa la tuso, la fududeeyo, qofkii joogayana la tuso qaabkii iyo waddadii uu ku joogi lahaa iyo meeshuu degi lahaa intaba la raadiyo. Adiga maalinba maalin culaysku soo siyaaday. Markii dambe waxaa noo soo baxday in isasaan macquul ahayn, dadka meesha wada rafaadsan, u baahan dad u hadla, u baahan dad garab istaaga, u baahan qof inuu u noqdo intiiba tilmaam, wax walba u baahan. Waxaan raadinay dad nooga indha furfuran oo hawshan garab nagu sii kara. Runtii waxaan raadinay qaabab badan oo xiriir u samayn karno, nooma aysan suurtagelin intooda badan. Nasiib wanaag markii dambe waxaan helnay wiil la yiraahdo oo public figure oo dadka social media caanka ah oo la yiraahdo Axmed Kadiye, kuna sugan waddanka Jarmalka. Axmed Kadiye markaa helnay Axmed Kadiye si automatic ah markiiba uu noo istaagay, wuxuu nagu xiray urur Afrikaan ah oo u dooda ama u hadla Afrikaanta qaaradda Yurub dhammaan. Ururkii markii aan helnay, ururkii isla markiiba noo istaageen. Alxamdulillah, waxayna siiyeen basas, waxayna siiyeen garab istaag, waxayna siiyeen dhiirigelin, intaba isu kaana dareen. Basaskii markii ay soo baxeen ay yimaadeen waddankii, dadkii aan diyaarinay dhammaan dad ka badan 200 oo qof waxaan ugu talagalnay basaskaas inay raacaan oo loogu talagalay in lagu gudbiyo dhankaas Jarmalka iyo meelahooda iska sii galaan. Nasiib darro, markii basaskii la keenay, dadkii aan meesha ku ogeyn oo dhanba oo iska kala tageen, ma naqaano qaab wax u dhaceen iyo si ay wax u turjunteen intaba. Laakiin hal mid aan idin sheegayaa, dhammaan dadka dhegeysanaya ama arki doona muuqaalkan ama dadka xuduudaha kasoo gudbi doona Soomaaliyeed, waxaan u sheegayaa dhammaantiin
hay-adda ama ururka dadkan caawiyey ee basaska usoo diray waxay ahaayeen urur ka kooban Africa. waxay ahaayeen urur ugu talagalay inay garab istaagaan ama caawiyaan dadka ajaanibta ah ee kasoo galay waddankaas. ma fiicno marka annagii inaan ishagi weyno ama aan aamini weyno dad annagii nagu jinsi ah na garab taagan raba in annagii na saacidaan. calaa taxaal waxaan rabaa inaan dhaho qof kasta ee Soomaaliyeed anagoo walaalkeen waan u taagannahay, waan soo dhaweyneynaa. awalna sidaan u ahayn intaasaan waddanka joogay, intaba sidaan u ahayn haddana waan u ahaanaynaa. waxaan rajaynayaa dad badan inay kasoo socdaan haddana weli xuduudda. aan u duceyno in ilaahay nabad keeno, aana garab istaagno qof kasta oo Soomaaliyeed meel kasta uu joogo. dadkaas meeshii uu ku arko ama qof kasta oo walaal oo Soomaaliyeed oo caawin u baahan, haddaanan iscaawin isgarab istaagin sidii Axmed Kadiye iyo ururka African Community-ka ee Jarmalka ka dhisnaa inuu garab istaagay si lamid ah, walahi waxba la qabsan karin. waana mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.